وين سلاوناتي المقعيقو يا محقادك داون اسمي جامعي ما تبقى كل حكسب سيا في اللوج ما تحك سكينا مينا ولقيقة وراء وتقين ما تا 6 ساعة وصبح لما يشق بلاوا الله كبير بديا 6 ساعة وصبح لما يشق بلاوا هديا يقول لك الكيس سبسكرايب ترى حق سبسكرايب ليه داون شو عن hadda waxaa tagaa meel laha harida oo ku taalo maxaa lambeter meeshaas ayaa waxaa ka soo qaada alaab badan alaabta dukaamada u qaybin lahay xaafad laha hisigan ayaa maanta ka shaqeynaya soo marka waa isla arkaynaa sida ay tahay iyo jawiga siduu yahay inkastoo meelaha qaar weligii aad tegin meelaha qaarna aan isha ku arka bas faat yani aan alaab geenin soo marka waa isla arkaynaa maanta jawiga siduu yahay teeda kale idinka dagaalkana ay soo qoraysiin dagaalka Yurub maxaa waay Yurub dagaal waa hore u diyaar garowday faat Sweden dagaalka u diyaar garowday waraa waxaa soo ridaysan soo ridaan wax aanay qaadaysin askar kana ayaa uga deganayna highway-ga kadibna buundadaas korkeeda ayaa mareena ayaa dhaxgaleena waxaa ka soo qaadayna alaabta maanta dhan qaybin lahayn maanta dhan maan yani inta ugu horeysa qadada inta la gaaray koor hadda waxaa waay 9 saac 43 9 saac 45 ana laga rabay alxamdulillah waqtiga ku imaanayso inta 6 saac la gaarin wixii aan qaybin lahayn ma aragtay meeshaan ka soo qaadayna soo hadda gaarigeyga waa soo rartay 9 xaba ayaa wada 9 shabaq 3 stop ayaa u socda inta 6 saac la gaarin waa inaan kala tuuraa kadibna qadadeeda aan qaata haddana waxaa u soconaa stop keeni koowaad oo inoo jira 19 kilomitir 16 daqiiqo ayaa u soconaynaa waa magaalada dhexdeeda xaafadda hisiga la dhahayo soo dhawaaw shaaxaaga soo qaado waa maalin talaade highway-gana hadda qabsanayna waxaa la E40 ama E40 wuxuu aadaa waqooyiga fog wadanka Sweden wadada ugu jeclaa in lagu safro waa E6 ka wadada ka markii laga soo haro wadadan waayo wadadan waa wada maxaa la double line oo oo toosan marka laga reebo marka yaan shopping gaartay waxay noqonayaan hal line oo cariiri ah حواران وصدمة ماشاس أنت سوكليا يا كوني عبارة لكن ووداء وقروح بدن إن لو سفرة حلقة سمركا أو كل كعجارية هي قرحنا يبناك تطلب waxbaa fahansiina highway-gana hadda ku socdo waxa la E6 sidee ku ogaanay E6 inuu ku socdo E6 markuu dhinaca Norway oo u socdo mar walba khiltaha cagaaran waxa ku qoran Oslo hada khiltaan cagaaran ee maan doono waxa ku qornaan doonta fiiriya waa soo dhaweynaa Oslo ku qoran oo jeeda Soomaan soo marka kale dhinaca kale u socdana waxa ku qoran Malmo meeshii hadda Oslo ugu qoran tahay ay waxa ugu qornaan doonta Malmo sidaas ayaa ku ogaanay highway-ga E6 inuu qofku ku socday in kale so haddii highway-ga saaranta tusaale ahaan E45 kana marka u socoto waqooyiga waxa ku soo qormaysa magaalada la dhahayo Karlstad ma fahmaysaa marka hoos u socotana waxa ku soo qormaysa Göteborg sidoo kale markii E40 ku socotayna sidoo kale Jönköping Stockholm ayaa ku soo qormaan badanaa kadibna waxa ku soo qormaa Göteborg Helsingborg fahmaysaa Soomaan so highway badan oo wadanka leeyahay laakiin kuwan waa kuwa ugu waaweyn uguna caansan ee dadka badankood isticmaalaan soo marka meeshaan ayaa anaka hadda ka deganayna si ay stopkeena koowaad aan ku tagno haddana waxa u soconaa stopkeeni labaad waxa u soconaynaa 4 daqiiqo 3 kilomitir ayuu inoo jiraa 3 shabaq ayaa stopkan ku taji doona ugu dambeynna waa soo dhameeyay 3 stop hadda waxa u socdaa balanku wuxuu inay hisigan ku qaato qadada laakiin hadda export gootan ayaa tagaa arrimaha meeshaas iga xiran ma fahantay soo alaabta wadana meesha iskaga dajinaa noo faaruq taagle meesha ka tagaa adhooti meesha qadada ku dilaa saaxiib haddana waxa tagaynaa xaafadda Tushland waliba Tushland Torred meel la dhahay ma fahmino meeshaas ayaa waxa ka soo qaadaynaa alaab laba dukaan ku taala oo maleena meesha labadaas dukaan aan tagaynaa alaab ka soo qaadaynaa kadib maanta wixii ka dambeeya waxa waa alaab la soo aruurinayna ma fahantay dukaanka wax ka soo qaad kan ka soo qaad kan ka soo qaad
haddana dukaan kale ayaa u soconaa dukaankan aan 5 daqiiqo camal u soconayna ma fad waxaa ka soo qaadaynaa alaab celis oo la geeyay soo hadda stopki waa ka soo dhamaan laakiin cabaareen ugu dhigta saaxiib meelka oo xeed kala koraysan ma fahanteen soo markayna gaariga hore madaxa dhulka u dhigto waa dabada kor u qaato yani meel iska dhib badan faat laakiin alxamdulillah dambeyn waa ka soo tagay soo haddana waxa u socdaa stop kale to kadibna waxa tagayna xarunta weyn ee ku taal hisigan meeshaas alaabta ku daadina kadib waxa ka soo qaadaa faaruq shabaqay faaruq oo shirkado u qaybinayo dukaanka waa ka soo dhamaanay meel garaas camal ka soo dhaxbaxoona ma fahanteen soo waxa tagayna hisigan soo alaabtan aan wada iska dajinayna kadibna shabaqay faaruq ayaa meeshaas ka soo qaadinayna si 4 shirkad ugu qaybino trafigan markaysa oo wadadaas ku socdo iyo waxaan hadda taagan waa traffic ku meel gaar waa xilliga warshada Volvo shaqaalaheeda ay shaqada soo dhameeyeen hadda waxa waaye saacadu fiiriya 9 saac iyo 9 daqiiqo waaye soo 10 saac bar 10 saac ugu dambeyn wadada dhan cid la noqonay ilaa waagu ka baryaay haddana way soo bilaabanayaan soo waa traffic ku meel gaar aan isku bedel ma fahanto saacadan wax badan ma 10 saac iyo 26 daqiiqo waaye soo hadda waxa u socda ii sheeg meesha ugu dambeysay alaabta ay ku tujilaay xogaa stress oo qod saacadii ugu dambeysay saaxib shaqada ugu dambeeyay shaqadii waa ka soo baxay saaxiib hadda xaafadeeda ayaa u socdaa soo waxa ka baxaya gadaal wada gadaal waayo marwina magaalada dhaxmaro oo lacag dawladda isbaarada dawladda maarkan oo bixi maala yacni soo markaa wadadana ay ka baxaa cabaara socona ma fahantaa 15 daqiiqo camal soo isla arkayna haddana waxa waaye 11 saac iyo 19 daqiiqo لقوا اسكدروا بتعينوا ولدك